asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalada muslimiinta oo meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeennii maxay ku islaameen barnaamijkeennana waxaynu kusoo qaadan doonnaa islaamnimadii brother joshua evans oo ahaa nin u dhashay dalka maraykanka joshua evans wuxuu ku dhashay magaalada greenville ee gobolka south carolina ee waddanka maraykanka joshua waxaa soo barbaarisay ayeydii iyo awowgii wuxuuna dhahay awowgay iyo ayeeyday waxay ahaayeen laba shakhsi oo kiristaan masiixiyiin ah oo weliba ku xeel dheer diintooda wuxuu dhahay guriga aan degannahay waxa ku ag ooli jirtay kaniisadana maalin kastoo axada ayaana loo kaxayn jiray halkaasna waxaan ku baran jirnay taariikhda iyo qisooyinkii nebiyadii sida qisada nebi aadam iyo nebi nuux iyo nebi muuse iyo nebi yuushac ibnu nuun iyo sidoo kale sawirada ku qoran kaniisadaasna waana la daawadsiin jiray iyo waxaana looga sheekayn jiray qisada aan anigu ugu jeclahay buu dhahay oo ahayd qisada ka warramaysa nebi daawuud iyo jaaluut oo ahaa ninkii uu nebi daawuud uu dilay wuxuu dhahay kaniisadii mudda ayaan joogay lamayaan ka noqday minister ama nin daaciya oo isagu ah qofka khudbadaha u akhriya dadka wuxuu dhahay joshua waxaan lahaa nin aanu saaxiibanahay oo dhigan jiray jaamacad gobolka ku taala oo isaguna ku takhasusay cilmiga dib u baadhista qoraalada baybalka wuxuu bartay luuqadihii qadiimiga ahaa ee uu ku qornaa kitaabka baybalka sida luuqadda griiga iyo araamiga oo ahayd luuqadihii ay ku hadli jireen yahuudi waagii hore wuxuu dhahay kutubo badan iyo qoraallo badan oo uu sameeyo ninkaasi ayaan gurigiisa ka akhrisan jiray aniga xitaa markii dambe waxaan jeclaystay in galaaska uu dhigto saaxiibkay aan ku biiro ee jaamacaddaas wuxuu dhahay haddaba aniga iyo saaxiibkay oo maalin wada fadhinaya waxaan isweydiinay annagu horta inaan kiristan nahay waan is ognahay laakiin weligaa ma akhriday kitaabka baybalka wuxuu dhahay saaxiibkay maya ee anigu weligay maan akhrinin kii kalena wuxuu dhahay maya ee aniguna maan akhrinin waan isla yaabnay oo waxaanu nidhi sidee baal innaga oo baadariyaal ah aynu akhrin weynay kitaabka aynu rumaysanay baybalka waxaanu go'aansanay buu dhahay inaanu akhrino kitaabka baybalka wuxuu dhahay joshua kitaabkan waxaan ka soo qaaday sidii kitaab yaalay dhul saxaro ah oo lama degaana kadibna markaa waxaan idhi kitaab yahow adigu hadal oo isu kay sheeg waxaa tahay kitaabkii ayaan kala furay waxaanan akhriyey kutubta ugu horraysa ee baybalku uu ka kooban yahay ee kitaabka loo yaqaano genesis wuxuu dhahay joshua kitaabkii markii aan akhriyey oo aan si fiican u fahmay ayaan ku arkay buu yidhi nebiyadii aan markii hore taariikh ahaana looga warrami jiray sida nebi aadam nebi nuux ibraahim iyo markaa nebi luut laakiin wuxuu dhahay markii aan waday taariikhda nebi nuux ayaa waxaa iga hortimay arrin aan ka cajabay oo aan la fajacon madaxana ka qabsaday dhegahana faraha ka gashtay arrintaasi waxay ahayd in baybalku uu leeyahay nebi nuux wuxuu ahaa nin khamriile ah ilaahay baynu ka magan galnay waxa kaloo baybalku uu leeyahay inuu nebi luut calayhi salaam uu lahaa laba gabdhood labada gabdhoodna ay khamri siiyeen oo ay la seexdeen kadibna ay carruur u dhaleen ilaahay baynu ka magan galnay iyagoo markaa aflagaadiya dhaleecay nebiga ugu samaynaya oo ay dhaheen siday sheegteen weeyaan kiristaanku iyo nebi luut wuxuu dhalay carruur qayrul sharciya oo uu ka dhalay hablihiisii isagu uu dhalay ilaahay baynu ka magan galnay wuxuu dhahay brother joshua markaan qisadan akhrinayay ee isla kitaabkaas ayaa waxaan idhi madaxa ayaan qabsaday waxaan idhi kitaabkani maaha hadal ilaah hadduu hadal ilaah yahayna falka noocaas ah kamaysan suurtoobin cid nebi ah ama qof ka yimi xagga ilaahay waan iska sii dhaafay buu yidhi waxaan gaadhay taariikhdii nebi daawuud iyo jaaluut oo ahaa cadowgiisa waana qisadii aan ugu jeclayn aad u xiisaynayey wuxuu dhahay qisada nebi daawuud ee kitaabka baybalka ku qorani waa qisooyin aad u cajiibo wanaagsan laakiin markii aan qisadiisa isagana sii waday ayaan waxa iga soo horbaxday arrin aad iyo aad u foolxun oo aan u cuntamin una qalmin marnaba cid wanaagsan ama nebi ah ama rasuul ah aanay marnaba ka suurtoobin arrintaasna waxay ahayd buu yidhi inuu nebi daawuud arkay gabadh la dhahdo bashiba gabadha bashiba la dhahdana waxay ahayd gabadh aad u qurux badan dabadeedna wuu ka sinaystay ilaahay baynu ka magan galnaye
wuxuuna dilay gabadhii Bashiba la odhan jiray ninkeedii. Arrintaa markii aan ku arkay Baybalka ayaan madaxa qabsaday buu yidhi. Dabadeedna waxaan u yeedhay baadariyadayga cilmiga badnaa oo aan weydiiyey sidee bay ku dhici karaysaa in kitaab sheeganaya hadal Ilaahay ay arrinta noocaas ahi ay ku dhex jirto. Wuxuu dhahay baadari kasta oo aan weydiiyo wuxuu iigu jawaabaa isla jawaabtii kii hore uu siiyey. Waxaad moodaa buu yidhi in lagu soo borogaraamiyey jawaabaha ay bixinayaan. waxay igu dhahaan buu yidhi Joshua waxaa tahay nin yar iimaankaaguna waa daciif oo wuu tamar yar yahay ilaahayna si weyn umaad rumaynin Baybalkana si weyn umaad rumaynin markaas waxay ku xadgudbeen maskaxdaydii iyo fikirkaygii iyo aragtidaydii iyo caqligaygii iyo maankaygii oo ay ku tuhmeen inaan ahay qof daciif oo aan weli wax fahmin aniguna waxaan isu aqaanay buu yidhi inaan ahay nin fariid oo maskax badan caqli badan maankayguna oo aan qabo subhanallah arrintii markaan ku arkay Baybalka gaar ahaan kitaabka Baybalka qaybtiisa hore ee loo yaqaano Old Testament ee ay Yahuudu rumaysan tahay ayaan iska soo dhaafay oo waxaan idhi kitaabka qaybta hore Yahuuda ayaa rumaysan ee qaybtan labaad ee New Testament ama ahdiga cusub loo yaqaano balad akhridid kitaabkii ayaan kala furay waxa iga soo horbaxay 4 kitaab oo ay kala qoreen nin kala dhahdo Matthew, John, Luke iyo Marcus afartan nin ayaa loo tiirinayaa inay qoreen gospelka ama anaajisha ku qoran kitaabka Baybalka gaar ahaan qaybta cusub ee New Testamentiga loo yaqaano kitaab kasta marka la bilaabayo wuxuu ku bilaabmayaa Matthew waa sida uu u qoray ama laga soo xigtay kitaabkan waxa qoray John oo laga soo xigtay kana waxa qoray Master Luke oo laga soo xigtay kana waxa qoray Master Marcus oo laga soo xigtay afartan nin ee kitaabka qorayna wax macluumaad ama tafaasiira oo laga hayaa ma jirto cid aqoon iyo cilmi u lahna ma jirtaba kolka cidii qortay Baybalka cid garanaysaaba ma jirto wuxuu dhahay Baybalkii ayaan akhriyay sidoo kale wuxuu sheegay Joshua in markii uu dhalinyarada ahaa ee aanu akhrinin Baybalka ay baadariyadu sheegi jireen inuu Ciise yahay Rabbi iyo inuu Ciise yahay Ilaah iyo inuu Ciise ahaa wiil Ilaah iyo inuu Ciise u dhintay dambiyadooda dabadeedna markaan Baybalka akhriyay ayuu wuxuu dhahay waxaan ugu tagay wax ka duwan wixii ay sheegayeen baadariyadu wuxuu dhahay waxaan u arkay Ciise Masiix calayhi salaam oo leh anigu waxaan ahay rasuul ka yimi xagga Ilaahay isagoo kula Yahuuda kelmado ku qoran luqadda afka Cibraaniga oo ah Shamo Israa'iilu Adonaya Elohim Adonaya Ahad wuxuu dhahay dhageysta reer bani Israa'iilow Rabbigay iyo Rabbigin waa Ilaahay Ilaahayna waa keli aniguna waxaan ahay rasuulkii Ilaahay oo soo diray nin kale ayaa u yimi Ciise Masiix oo ku dhahay kan barakaysanow noo sheeg sidee baan ku gaadhinaa jannada markaas wuxuu dhahay Nabi Ciisana anigu ma ihi ka barakaysan ee cidda barakaysani waa Ilaahay haddaad doonaysid inaad jannada gashidna waa inaad raacdaa fariimihii ku qornaa kitaabka Tawraad wuxuu dhahay arrimaha markaan arkay ayaa waxa ii cuntumi weyday sidee baa markaa loo rumaynayaa inuu Ciise uu u dhintay dambiyadayada isagoo nagu le weliba waa inaad raacdaan fariimihii ku qornaa Tawraadna waxa ku qornayd in Ilaahay kelinimo loo rumaysto halkana waxay leeyihiin Ciise wuxuu ahaa wiil Ilaah Ciisena weligii Ilaahnimo muu sheeganin arrinta iska horimaadka ah ayaan arkay buu dhahay brother Joshua sidoo kale waxaan isweydiiyay buu yidhi maxaa Yahuuda ku kalifay inay rabeen in ay dilaan Nabi Ciise oo weliba si xun u dilaan oo ay salbiyaan sababta iminka ayaan ogaaday buu dhahay wuxuu yidhi sababtu waxay ahayd Yahuudu waxay rabtay in ay beeniyaan Nabi Ciise inuu ahaa Masiix hadda ka hor ayaa Yahuuda loo sii sheegay inuu iman doono Nabi Ciise oo magaciisuna yahay Masiix dabadeedna waxay doonayeen inay buriyaan masiixnimadiisa kolkaasi ay u tijaabiyaan ayay si xun u dooneen inay u dilaan oo ay ku dilaan saliibka sidoo kale waxaan ku arkay buu dhahay kitaabka Baybalka iska horimaad iyo qaladaad fara badan baadariyadii ayaan ku noqday markaasaan weydiiyay maxaa sababay qaladaadkan iyo iska horimaadkan faraha badan ee kitaabka ku qoran waxay igu dhaheen iminka ayaad dhiidhigii iyo biyihii aad u gashay dhageyso bay nagu dhaheen kitaabkan cidda qortay waa gacan bani aadam gacanta bini aadamkuna qalad iyo sax labadaba way leedahay laakiin kaliya Joshua waxa laga rabaa inaad adigu iimaan laga helo oo aad rumaysid wuxuu dhahay Joshua arrintaasi waxay noqon weyday arrin iyo cuntanta waanan iskaga baxay diinta Kiristaanka kadibna waxaan bilaabay inaan barto diinta Yahuuda Hinduuska Buddhismka Tajikismka iyo dhammaan diimaha waaweyn oo dhan
kolkii aan kutubtooda akhriyay waxaa ii soo baxay in diimahaas badankooda oo dhan ay u janjeedhaan in ilaahay kelinimo loo rumeeyo, laakiin haddana waxaa diin kastaba ka buuxa balaayooyin iyo qaladaad ciidda ka tira badan oo aan caqliga bani aadamka geli karaynin oo aan la rumayn karaynin. kadibna ninkii wuxuu noqday Joshua nin agnostic ah oo ilaahay ka shakisan, sidoo kalena wax diin ah aan rumaysnayn. wuxuuna bilaabay inuu tago kalaabiyada iyo meelaha lagu tuunto. wuxuu noqday ninkii Joshua khamriile iyo cayaal suuq. wuxuu dhahay maalintii dambe ayaan fuulnay gaadhi, aniga iyo saaxiibkay, labadayaduna waan cabsannahay oo khamri baanu soo cabnay. gaadhiga ayuu si xawliya saaxiibkay u kaxeeyey, aniguna shidhka dambe baabuurka ayaan seexday. waxaan ku war helay jug iyo gaadhigii oo geed weyn galay. markii aan hurdada ka soo kacay ayaan arkay gaadhigii oo geed weyn dusha ka saaran iyo saaxiibkay oo kooma ku jira iyo gaadhigii oo xaggiisa hore oo dhan ay burburtay. gaadhiga xaggiisii dambe ayaan ka soo degay buu yidhi. nin waddada marayay ayaa iga hor yimi oo wuxuu igu dhahay, gaadhigan miyaad ka badbaaday? waxaan idhi, haa, anigaaba ku jiray gaadhigan. ninkii ayaa wuxuu igu dhahay hadal aad iyo aad u cajiiba oo ilaa iyo hadda aanan ilaawin. wuxuu igu dhahay, haddii aad gaadhigan ka badbaaday Joshua ow, ilaahay ayaa arrin kula wata. wuxuu dhahay arrintaas intaan la yaabay ayaan iska tagnay. anigana waxaa la geeyey cusbitaalka, saaxiibkana cusbitaalka la geeyey. markii dambena waa la xidhay oo ganaax baa lagu soo rogay. haddana isla saaxiibkay markii uu jeelka ka soo baxay ayaan isu raacnay magaalada New York. magaalada New York markaan tagay ayaan waxaan doonay inaan lacag meel kala soo baxo. waxaanan ka war helay buu yidhi nin baastoolad sita oo madaxaygaga haya. baastooladii yarayd ee markaan tviyada ka arko wax yar ahayd ayaa waxay wejigayga ku noqotay madfac aad u weyn. cabsi badan iyo warwar badan oo ila soo darisay ayaa waxaan maqlay cid gadaasheeda ka qaylinaysa oo leh carar. dabadna waan isii daayo waan fiirdhaday. arrintaa markii aan gurigayga tegay ayayday oo joogtay umaan sheegin, sababtoo ah ayayday laftigeedana waan ka cabsanayay oo waxaan islahaa iyada laftigeedaaba ku dilaysa ama dhaawac ku soo gaadhsiinaysa. wuxuu dhahay brother Joshua, bil kadib ayaan ayayday u sheegay. ayaydayna waxay igu tidhi arrin kale oo cajiiba. waxay tidhi, Joshua ow, ilaahay wax buu kula rabaa. wuxuu dhahay haddaba maalin kale aniga oo library-ga ama maktabadda ku jira ayaa waxaa iga soo horbaxay kitaab ay ku qoran tahay Muslim ama Islaam. kitaabkii ayaan kala furay. kitaabkana waxaa qoray buu dhahay qof cadow ku ah islaamka. wuxuu dhahay kitaabkii markaan kala furay ayaa waxaa ku qoran qeexid la qeexayo islaamku wuxuu yahay iyo muslimiintu. waxaa kitaabka ku qoran inay muslimiintu caabudaan dhagax madow oo yaala dhulka saxaraha ah, sidoo kale inay ragga muslimiinta ahi ay guursan karaan dumar aad u tiro badan oo aan xaddi lahayn. waxaa kaloo iga sii yaabisay buu yidhi arrinta jihaadka ku saabsiisan oo kitaabka waxaa ku qornaa in qofka muslimka ahi uu dili karayo meel kasta iyo goob kasta iyo goor kastaba uu ku dili karo ciddii aan muslim ahayn ee ka soo horbaxda sabab la'aan iyo bilaa sabab. dabadeedna kitaabkii ayaan qaaday waan tuuray buu yidhi. maskaxdaydana weligay marnaba kuma soo rogin islaam iyo muslimnimo toonna. dabadeedna wuxuu dhahay maalin ayaan la kulmay nin madow oo Afrikaana oo u dhashay dalka Mareykanka oo African Americana. ninka gurigiisa markii aan galay ayaa wuxuu ninkaasi weydiiyey su'aasha ah, ma taqaanaa islaamku wuxuu yahay? waxaan idhi, ileen anigu kitaabkii islaamka ayaan akhristay sida uu isagu markaa aaminsanaaye. wuxuu dhahay, haa, si weyn baan u aqaanaa, kutubtoodana waan akhriyey. wuxuu dhahay ninkii Mareykanka ee madoobaa, aniga ayaa ah muslim, magacaygana Muuse ayaa la dhahaa. wuxuu dhahay, Joshua, war ma tihidee malaa waad igu cayaaraysaa. wuxuu dhahay, maya ee waan ahay, anigu weliba ma yihi muslim fiicane, waxaan kuu geynayaa muslimiin fiicani meesha ay joogto. wuxuu dhahay arrintii baa igu adkaatay sababtoo ah kitaabkii aan akhriyey waxaa ku qornaa muslimiintu waa carab oo keliya, carabtaasina waa dad qani ah oo xoolo haysta. ninkan madow ee Afrikaanka ahina wuxuu ahaa nin madow oo markaa nin caraba muu ahayn. talabaadna wuxuu ahaa nin miskiina oo iibiya caagadaha sharaabku ay ka dhammaadeen. kolkaa way ii suurtogeli weyday sideebaa nin madow oo caagadaha sharaabku ka dhammaadeen iibiya uu u noqonayaa muslim. ninkiiba haddaba wuxuu ii sharaxay islaamkii, wuxuuna igu yidhi masaajidkan ku geynayaa. wuxuu ii geeyey meel masaajid oo gurigayga u dhoweyd. masaajidkii markaan galay ayaa nin baa iga soo horbaxay qoslaya. ninkaasina wuxuu ahaa mu'adinkii salaada addimayey. waxayna ahayd maalintaas
maalintaasi maalin jimco ah wuxuu igu dhahay khudbaddii jimcaha ayaa socota ee khudbaddana la dhegayso waan soo galay buu yidhi masaajidkii markaasaan safka meel ka mida baan fadhiistay wuxuu dhahay dad baa iga horreeya dad kalena way iga dambeeyaan waanan cabsanayaa ninkii haddaba khudbadda akhrinayay wadaadkii baa soo galay oo maryo cadcad sita ninkiibaa markaa wuxuu istaagay mimbarkii isagoo markaa gacmihiisa ku garaacaya mimbarka kuna hadlaya hadal aanan fahmaynin oo ahayd luuqadda carabida wuxuu ku bilaabay hadalkiisii ina alxamda lilaahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastaghfiruh waxaanu turjuntay buu yidhi anigu ila luuqadda afka carabida ma fahmaye inuu ninkaasi uu leeyahay maanta masaajidka waxaa soo galay nin caddaan oo maraykana waa in la gubaa oo la gaagaabiya cabsidii baa igu badatay buu dhahay ilaa wadanahaygii uu afka uu yimi hareeraha ayaan fiiriyey waxaan fiirsaday bal hadda meel aan ka baxsan karo ama aan ka dusi karo haddana wuxuu isku dhahay bal ilaa iyo inta ay khudbaddani dhammaanaysay iska sug ninkii haddaba markii uu khudbaddii uu dhammeeyey ayuu bilaabay inuu khudbaddiisii afka carabida ahayd uu turjumo wuxuu ku turjumay hadal aad u cajiiba oo la yaab leh oo qiimo iyo miisaanba leh wuxuu dhahay ninkii isagoo turjumaya hadalkiisii uu ku bilaabay wuxuu dhahay ilaahay baa mahadda iskale rabbiga barbaariyay caalamiinta rabbiga iskale maalinta qiyaame ilaahayow adiga unbaan keligaa ku caabuday ilaahayow adiga unbaan keligaa ku tala saaranaynaa ilaahayow waxaad unagu hanuunisaa jidka toosan jidkii ay mareen dadkii wanaagsanaa ee aad u nicmaysay ee aan ahayn kuwa lunsan iyo kuwii aad u cadhootay toonna waan yaabay buu dhahay oo waxaan isweydiiyey halkee buu ka soo xiganayaa warkan uu akhrinayo baybalka maaha kutubtii hinduuska maaha kutubtii buudhishka maaha hadalkan wanaagsan halkee buu ka soo xiganayaa khudbaddii buu sii waday isagoo fasiraya mise khudbaddu waxay ka hadlaysaa dembi dhaafka uu ilaahay u dembi dhaafayo bani aadamka wuxuu sheegay buu yidhi ninkii wadaadka ahaa inuu ilaahay dembiga ka dhaafayo qof kasta oo muslima ama qof kasta oo ilaahay kelinimo u rumaysan oo aan cibaadada ilaahay cidna la wadaajinin inuu ilaahay dembigiisa intuu doonaba ha noqday uu ka dembi dhaafayo wuxuuna soo qaatay buu dhahay xadiiskii saxiixa ahaa ee ilaahay uu lahaa addoonkaygiiyo haddaad iila timaadid dhulka oo dhan oo buuxa oo dembiya oo aad ii timaadid ama aad ila kulantid maalinta qiyaame adigoon cibaadadayda cid kale la shariik yeelin aniguna waxaan kuula iimanayaa dhulka miisaankeeda dembi dhaaf la egoon dembiga kugu dhaafayo wuxuu dhahay diinta kiristanka annaga waxaana laguma barin wuxuu dhahay waxaana la baray in dembi dhaafku uu yahay arrin adiga iyo ilaahay idin dhaxaysa oo xadidan laakiin dembi dhaafka weyn ee intaa la eg ilaahay uu dembi dhaafayo dadka oo dhan waxaan ku bartay baybalka iyo diimaha kale mabaysan ahayn buu dhahay waxa kale oo uu dhahay wadaadkii wuxuu yidhi ciddii dembi shirki ah la timaada oo weliba markaa ka soo laabata shirkigaas iyo dembigaas ilaahay xitaa shirkigaas iyo dembigaa wuu ka dhaafayaa hadduu ka towbad keeno wuxuu dhahay waxaan dareemay in uu aniga iga hadlayo khudbaddii markii ay dhammaatay ayaan wadaadkii la kulmay dabadeedna waxaan ku dhahay buu yidhi muslin anigu ma ihin laakiin waan jecelahay diintan inaan barto markaa ninkii ayaa waraaqo soo qaaday ay ku qoran tahay qaabka diinta islaamka loo baranayo waraaqahaasna waa kuwa aan ka daalay buu yidhi sababtoo ah diin kasta markaad geshid kutubtooda waxa ku qoran iyo waraaqaha waxa ku qoran way iskhilaafayaan marka waxaan ku wuri sheekhow kitaab ma leedihidin ninkii intuu qoslay oo uu dhoolla cadeeyay buu igu yidhi haa kitaab waan haysanaa dabadeedna intuu maktabadda galay ayuu kitaab qur'aan oo ku qoran luuqadda afka ingiriisiga ii dhiibay waan qaatay buu yidhi uma baahni baan ku yidhi wax sharaxaada sababtoo ah waxaan rumaysnaa buu dhahay haddii kitaabkaasi ay haystaan ee ay rumaysan yihiin uu yahay kitaab xaqiiqo ah oo run ah isaga ayaa ila hadlaya ayuu dhahay waan tegey buu yidhi anigoo kitaabkii xiisanaya gurigaygii ayaan galay markaan gurigii galay ayaan kitaabkii kala furay waxaan akhriyay suuraddii ugu horreysay ee qur-aanka oo ah suuratulfaatixa waxaan ku xijiyey suuradda labaad ee suuratilbaqara markaan suuradda labaad akhrinayay ayaa waxaan iga soo horbaxday aayad cajiiba wuxuu leeyahay qur'aanku alif laam miim dalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin kani waa kitaab aan shakiba ku jirin waan la yaabay oo faduuliyad baa i qaatay oo waxaan idhi sidee buu kitaab u odhan karaa shaki kuma jira kitaabkan waan la sii yaabay buu yidhi oo hore ayaanu sii socday in yar markaan sii socday baa waxaa iga hortimi aayad kaloo cajiiba oo uu kitaabkaasi uu leeyahay
haddii shaki aa ka qabtaan wixii aan ku soo dejinay addoonkayaga oo nebi maxamed bal carar la kaaliya haddaa xiniya leedihidiin suurad la mida qur-aanka una yeedha wax ilaahay ka soo hadhay oo dhan oo bal hal suurad oo qur-aanka la mida la kaalaya waxaan arkay buu yidhi kitaabkii ii cariyey oo uu challenge iyo taxaddi igu sameeyey faduuliyad baa isii qaatay oo haddana qasab iyo xoog baan kusii akhriyey buu yidhi wuxuu dhahay aayad kastoon akhrinaya qalbigaygay taabanaysaa aayad kastoon akhriya waxay leedahay oo ay ku dhammaanaysaa miyaydan fakarayn miyaydan caqli lahayn miyaydan wax kala garanayn miyaydan maan iyo maskax kitaabkan akhriya oo bal qalad ka soo saara wuxuu dhahay suuraddii saddexaad ee qur-aanka ayaanu gudbay oo ahayd suuratu aali cimraan mise waxaa iga soo horbaxay nebiyadii aan wada aqaanay oo dhan nebi aadam nebi nuux nebi ciise nebi muuse nebi idriis dhammaan nebiyadii oo dhan baa iga soo horbaxay ee aan wada aqaanay subxaan allah waan la yaabay waxaanan idhi sideeba kitaabkani uga sheekayn karaa nebiyadii uu ku qornaa kutubtii hore subxaan allah waan sii waday buu yidhi qur-aankii ayaan aad iyo aad ula sii cajabay ilamaaya aan ka gaadhay aayadda qur-aanka ilaahay uu leeyahay afalaa yatadabbaruuna alqur'aana walow kaana min cindi gayri illahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan katiiraa miyayna fiirfiirinaynin kitaabkan weyn ee qur-aanka kariimka haddii uu ka yimi kitaabkani cidaan ilaahay ahayn waxay ka dhex heli lahaayeen qaladaad fara badan iyo iska horimaad badan oo iska hor imanaya arrintaa markii aan arkay oo qur-aankii taxaddiga noocaas iyo carinta noocaas igu sameeyey anigoo doonaya inaan ka soo saaro qaladaad ayaan ka waayay wax qalada ayaan ka waayay aayad aan booskeeda oolin markaas ayaan waxaan go'aansaday in aan qaato kitaabkan wuxuu leeyahay masaajidkii ayaan ku soo noqday maalintii isniinta kitaabka dhan ee qur-aanka wuxuu ku akhriyay muddo 3 casha jimcihii iyo sabtidii iyo axadii isniintiina masaajidkii ayuu ku soo laabtay wuxuuna u yimi ninkii wadaadka isagoo leh waxaan rabaa inaan muslim noqdo oo aan raaco kitaabkan masaajidkii markii uu yimi ayuu wadaadkii wuxuu ku dhahay jimcaha kale isu keenkeen marka ay dad badani ay joogaan khudbadii jimcaha intaan la gelin ayaan shahaadadii ku dhawaaqay ayuu dhahay brother Joshua Evans maanta waa daaci muslim ah oo dadka gaalada ah ugu yeedha diinta islaamka qisada cajiibka ahna wuu leeyahay fariin aad u weyn halkan uu ka dirayaa oo uu leeyahay muslimiintu ayaga ayaa ah dadka dayacay dad yowga kale ee aan muslimka ahayn wuxuu dhahay waxa jira malaayiin iyo malaayiin aniga ila mida oo runta iyo xaqiiqada raadinaya laakiin aan helin kuna dambeeya in ay istilaan oo ay meel iska soo turaan ama xabad iyo rasaas isku ridaan ama marka ugu dambaysa ilaahay jiritaankiisa diida kadib markay arkaan qaladaadka iyo isku horimaadyada kutubta beenta ah ama la bedelay ama la xarifay inahaasaynu ku soo koobi doonaa qisadii brother Joshua Evans oo ahayd qiso aad iyo aad u cajiiba iyo weliba ninkaas oo ahaa nin raadinayay xaqiiqada markii ugu dambeeyana gaadhay xaqiiqadii oo ilaahay uu markaa hanuuniyey intaynu ku kulmi doonno barnaamijkeennan ka xigana waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh